Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dadkayga aan jeclahayow haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato fadlan nagu taageer share like iyo warcelin dhiirigelin ayay noo tahay qof kasta oo inaga mid ah waxa uu jecel yahay inuu noqdo qof ay jecel yihiin dadka oo dhan waana mid uu kasban karo qof kasta oo inaga mid ah laakiin waa markii aad dhanka wanaagsan joogtid qofka quruxda badan dadku aad ayay u jecel yihiin laakiin jacaylkoodu waxa uu noqonayaa sidii qiiq hawada galay oo kale markii aanay quruxda naftu la socon quruxda jirka cunsurka ugu muhiimsan ee aad ku kasban karto jacaylka dadka waa soo jiidashada wanaagsan ee ka muuqata haddaba waxa aan ku hayaa 7 qodob oo haddii aad samaysid aan ka ballan qaadi karo inaad noqonaysid qof la jecel yahay lambarka koowaad si dadka qadarin iyo ixtiraam haddii aad doonaysid inay ku ixtiraamaan kuna qadariyaan dadku waad kasbatid qulubtooda iyo jacaylkooda ayna ku aqbalaan fikradahaaga haddaba ixtiraam si la mid ah sida aad u rabtid ogoona waxa aad beeratid inaad helaysid dalagga ka soo go'a waxa ay sugeen cilmi baarisyo cusub in haddii uu barto qofku sida wanaagsan ee dadka loola dhaqmo oo ay u horeyso ixtiraam in uu ku guulaystay 85% wadada guusha deedna uu isna helay 99% wadada farxadda shakhsiyadiisa lambar 2 ku kalsoonoo naftaada siina ixtiraam ku kalsoonaanta naftu waa shaqo wanaagsan oo aad ku kasban karaysid kalsoonida dadka kale ixtiraamida naftaaduna waxa ay si la mid ah ku dhaxal siinaysaa ixtiraamka kuwa kale sida ah ogaalka dad badan qofka aan ixtiraamin naftiisa isagana lama ixtiraamo dadku waxa ay kula dhaqmayaan sida aad ka yeeshid adigu booskaaga halka aad geysid naftaada haddii ay tahay mid u qalanta shakhsiyadaada iyo hankaaga ogow waad helaysaa wax la mid ah waxa uu leeyahay Zuhair ibn Abi Salma qofkii aan karaamayn naftiisa lama karaameeyo lambar 3 u dhagraaricinta wanaagsan dhageysiga wanaagsani waxa uu ku leeyahay saameyn wanaagsan cid kasta ma dhaho qof aan aqoon sida loo isticmaalo ujeedadan ay u siiyaan shirkado badan oo dunida ah tababaro ku saabsan dhageysiga iyo u dhagraaricinta wanaagsan shaqaalahooda waxa uu ku xusay qoraaga buugga Winning People Over Barton Kaplan in cilmi baarisyo jaamacadeed ay sugtay dhageysiga wanaagsani inuu la mid yahay 20% dhibaha laga helo garaadka sareeya waxana uu leeyahay Kaplan waxa ay ku siinaysaa taasi galasho ka badan inta ay helaan kuwa aan lahayn xeelada wacan ee wax dhageysiga lambar 4 saameynta xoogan ee dhoolla-cadeynta waxa ay dhoolla-cadeyntu ku leedahay saameynkan wajigiisa ay ka muuqato iyo kuwa kaleba waxa ay sugeen cilmi baarisyo aqooneed in ka warcelinta arrin aad ka samayso ay ku siinayso dareen la mid ah isla warcelinta aad samaysay waxana ay tani inoo cadeynaysaa in dhoolla-cadeyntu ay ku siinayso farxad la mid ah tan ay dadku ka arkeen baaritaano kale ayaa leh dhoolla-cadeyntu waxa ay ka mid tahay rukunada u muhiimsan farxadda iyo guusha waxana ay raacinayaan baaritaanada aqoontu in qofka uu ka dhoolla-cadeyn badan yahay uu ka soo jiidasho badan yahay kan kale kana saameyn badan yahay kagana awood badan yahay qancinta dadka kalsoonida nafta ayaaba u sii dheer intaas lambar 5 isla weyni la'aan isla weynidu waa dabeecad ay neceb yihiin dadka oo idil waa arrin u xun qof kasta inuu dabeecad ka dhigto ahow mid aan iska weyneyn cidna haddii aad garabkaaga la siinto qof kasta ogow in ay ku jeclaanayaan dadku lambar 6 wanaag u rajee qof walba inaad u rajeyso qof walba wanaag oo aad la jeclaatid waa arrin wanaagsan kuna soo jiidaysa kasbashada qulubta dadka ka fogow xaasidnimo oo ha ku sifoobin qof kasta la jeclo wanaag iyo khayr lambar 7 daacadnimadu waa mid ka mid ah sifooyinka ay ku soo hirtaan dadku oo ay jecel yihiin ahow mid sareexa fikrad ahaan iyo hadal ahaanba waad helaysaa mid la mid ah fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh mahadsan